bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan dhegaystayaal wararka saaka shabeelle idiin hayso waxaa ka mid ah xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in ay qabanayso shirweyne ay culimada Soomaaliyeed kala tashanayso dagaalka ku wajahan al-shabaab kooxo burcad oo xalay dil iyo boob baasan ka geystay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinno ka soo baxaya weerar kooxo hubaysan xalay ay ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda Caymiska ee degmada Yaaqshiid kooxo hubaysan oo qof rayid ahaa xalay ku dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir xisbiga wadani ee Soomaaliland oo gebi ahaan joojiyay la shaqaynta guddiga doorashada madaxweyne ee maamulkaas rabshado dad ay ku dhinteen oo xalay ka dhacay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa ee Soomaaliland guddiga doorashada Soomaaliland oo beeniyay in musuqmaasuq ay ku kaceen guddigooda iyo warar dheeraada oo ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalo xeebeedka Lamu ee dalka Kenya qodobada wararka dibadda ee Shabeelle saaka idiin haysana waxaa ka mid ah aqalka wakiilada Mareykanka oo taageeray isbeddel uu soo jeediyay madaxweyne Trump iyo hay'adaha gargaarka qaramada midoobay oo ka dayrinaya xaaladda Yemen soo gudbinta warka subaxnimo ee raadiyo Shabeelle waxaa idiin suurta gelisay warshada isbuunyada Shaaka doodarayaal tayeesan iyo fadhi carbeed tayo wanaagsan leh u doona warshada isbuunyada Shaaka waa subaxnimo jimca oo taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha November 2017 warkaasi oo dhan saaka waxaa la diyaaray wariyaheena Cabdullaahi Cismaan Cadaani mahadsanid maxamed axmed maxamed jimcaale subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in ay qabanayso shirweyne culimada Soomaaliyeed kala tashanayso dagaalka ku wajahan al-shabaab sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo maxamed aadan onkod xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in shir ay isugu keento culimada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dalka dibadiisa si loola kaashado dagaalka ka dhanka al-shabaab wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarinaysa shirweyne dawladdu ay ku doonayso in culimada Soomaaliyeed ay ula kaashato dagaalkii oo dhawaan iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka dhanka xarakada al-shabaab wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in shirkan la qaban doono bisha soo socota isla markaana looga hadli doono si loo dardargelin lahaa sugidda ammaanka dalka iyo dagaalka ka dhanka xarakada al-shabaab kadib wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ayaa laga dhageystay warbixin ah in wasaaraddu qorsheynayso in la qabto shirweyne qaran ee culimada Soomaaliyeed isugu yimaadaan magaalada Muqdisho bisha December si loogala wada tashto kaalinta ku aadan culimada diinka doorkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo bacdama culimada diinka yihiin bulshada qaybaheeda ugu muhiimsan sidii dawlad wanaagga iyo nidaamka dawliga loo gaarsiin lahaa dalkan doorashooyinkana lagala tashan doono madaxweyne Farmaajo ayaa qaraxii Soobe kadib iclaamiyay dagaalka dhan al-shabaab ee looga saarayo dalka Soomaaliya iyaduna weli xarakada al-shabaab ay ku xoogan yihiin degmooyinka ka tirsan dalkani Soomaaliya isla markaana qaraxii idil qorsheysan ay ka fuliyaan al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayso dawladda federaalka Soomaaliya kooxa burcad ayaa xalay dil iyo boob baahsan waxay ka geysteen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in xalay rag hubaysan ee dhac xoogan ka geysteen deegaanka Cadow Dibile oo ku yaala duleedka degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose kooxdan hubaysan ayaa la sheegay in rasaas ay ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa deegaankaasi isla markaana halkaasi ay ku dileen hal qof kuna dhaawaceen mid kale kuwaas oo ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka Cadow Dibile ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in raggan ay boob xoogan u geysteen goobo ganacsi oo ku yaala deegaankaasi isla markaana arrintan ay ku beertay walwal xoogan ma jiro weli wax war ka soo baxay maamulka degmada Afgooye oo ku aadan arrintan balse deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa inta badan waxaa ku soo laalaabta dhaca iyo dilalka ay kooxo hubaysan ka geysanayaan gobolkaasi xisbiga wadani ee Soomaaliland ayaa gabi ahaan joojiyay la shaqayntii guddiga doorashada madaxweyne ee maamulka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mahad Mutawakkil
cabdiraxmaan ciro gudoomiyaha xisbiga wadani oo ka mid ah musharaxiintii u tartantay xilka madaxtinimo ee maamulka Somaliland oo xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa sheegay in gabi ahaanba xisbiga wadani ay joojiyeen wada shaqeyntii kala dhaxeysay xisbigaas guddiga doorashooyinka kadib markii ay diideen guddiga doorashooyinka inay wax ka qabtaan cabashooyin ay u gudbiyeen taasina ay sababtay in gabi ahaanba ay jiraan wada shaqeyntii kala dhaxeysay guddiga doorashooyinka xisbiga wadani. anigu shakhsiyan anigoo musharax madaxweyne iyo gudoomiyaha xisbiga wadani waxaa laba jeer u tegay komishanka qaranka qoraalna waan ugu gudbinay cabashooyin ku saabsanaa sixitaan oo ah in naloo eego nalala hubiyo naloo tiriyo sanaaduuq gaar ahaan gobolka Maroodijeex 40% annagoo dareennay in mugdi badani uu ku jiro degmooyinka Gabiley iyo Hargeysa labadaba. Komishanku waxay noo sheegay inay jawaab nagu soo celin doonaan. Jawaab ilaa hadda ay nagu soo celiyeen maan arag. sidaa daraaddeed waxaanu amarnay iminka laga bilaabo dhammaan wakiilada xisbiga wadani ee la shaqeynayay komishanka ama task force-ka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba inay joojiyaan shaqadii ay wadeen ilaa inta komishanku uu ka jawaabayo waxna ka qabanayo cabashooyinkaas. dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax u tartamay xilka madaxtinimo ee maamulka Somaliland cabdiraxmaan ciro ayaa ka codsaday shacabka Somaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay isdejiyaan kana warsugaan guddiga doorashooyinka balse waxa uu hoosta ka xariiqay in iyagu ay joojiyeen wada shaqeyntii. shacbigana taageersan annagoo ka warwarsanayn annagoo ka warwarsanayn natiijada waxaan ka codsanaynaa inay isdejiyaan annagoo ka warsugaynaa komishanku inay arrintaas si dhaqso ah uga jawaabaan. waxaan ugu baaqaynaa taageerayaashayadu inay annaga naga warsugaan haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan shacbiga Somalilandna ugu baaqayaa inaanay fariinta iyadu ahayn fariin naxdineed ama fariin xaalad ka abuuraysa laakiin ay tahay si loo saxo arrintaas si aynu helno natiijo cid waliba ku wanaagsan tahay iyadoo Somaliland ku dhisan tahay aanay ku dhisanaysa muquunin. waxaana u soo jeedinayaa komishanka qaranka inuu ku soo noqdo xaydaabka wadatashiga iyo isqancinta. hadalka cabdiraxmaan ciro gudoomiyaha xisbiga wadani kadib xalay magaalooyinka Hargeysa iyo Burca waxaa ka bilowday rabshado kuwaas oo sababay geerida 11 qofood oo 10 kamid ay ku dhinteen magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland halka qofka kalena uu ku dhintay magaalada Burco. mahadsanid mutawakkil. dhinaca kale guddiga doorashada madaxtinimada maamulka Somaliland ayaa beeniyay in masuqmaasuq ay ku kaceen sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed axmed jimcaale. gudoomiyaha guddiga doorashada maamulka Somaliland Saciid Cali Muuse uu waramayay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa beeniyay eedeymo loo jeediyay guddiga doorashada maamulka Somaliland oo ku aadan musuqmaasuq ay ku kaceen guddigaasi doorashada madaxweyne ee Somaliland. mudane Saciid Cali Muuse ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in warqado ka baxsan kuwa rasmiga ahaa ee lagu codeeyay lagu arkay goobaha ay ka socdaan tirinta codadka ee la dhigay sanaadiiqda codbixinada horeyna ay ugu codeeyeen bulshada maamulkaasi Somaliland. horta hore aad sheegtay waraaqaha la sheegayo annaga waraaqa ka baxay xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka oo suuq galay ma jiraan. waraaqaha annagu aanu keennay ee aanu dawladda ku soo daabacnay waa waraaqo ammaan leh oo ammaankooda laga soo shaqeeyey oo waxyaabo security featureska loo yaqaano ama astaamo ama calaamado ammaanka lagu adkaynayo loogu talagalay inaan si la qishi karin ama forgery lagu samayn karin
weeyaan waraaqaha aanu keennay waana la eegi karaa waxa ay leeyihiin suuqa haddii madbacdaha loola galo suuqa waa lagu samayn karo xitaa ma aha oo waxaanu haynaa qalab aanu ku eegno marka taasi horta mid ka soo baxay waraaqahaasi ciddii waraaqahaasi sheegtayna iyadaa soo caddayn doona meesha waraaqahaasi ka yimaadeen laakiin halka waxaanu ka caddaynaynaa inaayan haba yaraatee ayan jirin wax waraaqa oo komishinka ka baxay doorashada madaxweyne ee maamulka somalilan oo dhacday 13 bisha November 2017 ayaa weli laga dhur sugayaa in lagu dhawaaqo natiijada ka soo baxday codeynta dadweynaha oo ay ugu kala codeeyeen musharaxiinta ilaa 3 xisbi oo ka dhisan maamulkaasi Somalilan waxaana soo ibaxayay maalmihii u dambeeyay cabashooyin xisbiyada qaar ay ka muujinayaan doorashadaasi oo ay sheegeen in ay jirto ku shubasho waxaa si gaar ah u cabanaya xisbiga wadani oo ka mid ah axsaabta ugu cadcad ee ka qayb galay doorashada maamulkaasi Somalilan kaas oo iminka qarka u saaran in gebi ahaan uu qaadaco doorashadaasi kooxo hubeysan ayaa qof rayd ahaa xalay ku dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Xasan Kaafi Xuseen Axmed ayaa faafahinta warkan haya kooxahani hubeysan ayaa nin lagu magacaabi jiray Maxamed Yuusuf waxa ay xalay ku dileen degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir dadka deegaanka ayaa sheegay in ninkani uu ahaa milkiilaha Greesh ku yaala inta u dhaxaysa xaafadaha Carafaad iyo Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir dilkani ayaa noqonaya kii labaad ee muddo 24 saac gudahooda ka dhaca magaalada Muqdisho shalay ayay ahayd markii kooxaha hubeysan ay nin lagu magacaabi jiray Nabadoon Nuur Afey ay ku dileen degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee gobolka Banaadir ee ku aadan dilkani loo geysay dadkan rayidka ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar kooxaha hubeysan xalay ee ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda caymiska ee degmada Yaaqshiid sida mar kale warbixinta warkan oo ku faahfaahinayo wariyaheenna Maxamed Axmed Jimcaale sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka dabley hubeysan ayaa xalay weeraray kontarool ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin xaafadda caymiska ee degmada Yaaqshiid wararka ayaa sheegaya in weerarka oo ku bilowday hub daryankiisa uu aad u xooggan yahay ayna xigeen rasaasta darandooriga u dhacda lagu qaaday kontarool ay ciidamada xasilinta caasimadda ku leeyihiin xaafadda caymiska ee degmada Yaaqshiid dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay dagaal foolkafool ah oo dhex maray ciidamada kontaroolka la weeraray ku sugnaa iyo kooxaha weerarka halkaasi ku soo qaaday ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi hase ahaatee al-shabaab ayaa horay weeraro lala beegsaday fariismo ciidamada dawladdu ay ku sugan yihiin dusha u ritay mas'uuliyaddooda sidoo kale lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo dagaal ka xigay xilliga oo habeen ahayd awgeed weeraradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda Soomaaliya dhowaan ay shaacisay in ay ku guda jirto qorshe ay duulaan ugu qaadayso deegaanada ay ka maamulaan al-shabaab gobolada dalka gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya mahadsanid Jimcaale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalo xeebeedka Lamu ee dalka Kenya warkan waxaa la socday wariyayna Xasan Kaafi oo hadda stuudiyaha ku sugan maxaa qasaraha ka dhashay Xasan Kaafi wararkan wararka ka imaanaya ee gudaha dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in markaasi kooxo hubeysan oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaala degmada markaasi ama magaalada Lamu ee magaalo xeebeedka dalka Kenya halkaasoo markaasi ay weerareen saldhig lagu magacaabo Mararani ee markaasi hoostaga degmada Lamu waxaana ay wararku ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen iska hor imaad u dhaxeeya kooxaha markaasi ama ragii ka tirsanay xarakada al-shabaab iyo waliba ciidamada booliska ee dalkaasi Kenya sida markaasi warbixinta ay qorayso markaasi gudaha dalka Kenya waxa ay sheegayaan inay jiraan qasaarooyin labada dhinac markaas soo kala gaaray waxaana kadib howlgallo xoogan ay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ay ka sameeyeen guud ahaan degmada Mararani ee markaasi weerarku uu ka dhacay saldhigga ku yaala waxaana guud ahaan markaasi ka socda markaasi deegaanadaasi howlgallo lagu baadigoobayo halka ay